gudoomiyaha gobolka Togdheer Axmed Cumar Xaaji Cabdilaahi Xamarji iyo wafdi ka kooban degmooyinka gobolka Togdheer ayaa maanta dib ugu soo laabtay magaalada Burco kadib markii ay kulamo dhinaca ammaanka ay maalintii shalay kula qaateen degmada Duruqsi maamulka degmada Gaashaamo oo ka tirsan kililka shanaad ee wadanka Itoobiya. kulamadan ay wada qaateen dhinacyadan maamulka oo kuwa aan saxaafadda loo ogolayn ayaa waxa ka qayb galay waxyaha ammaanka ee labada dhinac maamulada iyo waliba taliyayaal ciidan kuwaas oo aan saxaafaddu si toos ah ula soconin. gudoomiyaha gobolka Togdheer Axmed Cumar Xaaji Cabdilaahi Xamarji oo saxaafadda uga waramayay nuxurka kulamadaasi kadib markii uu shirkaasi dhamaaday ayaa waxa uu sheegay in lagaga wada hadlayay sidii labada dhinac ay isaga kaashan lahaayeen dhinacyada nabadgelyada iyo wada shaqaynta maamul ee labada gobol. shir ballaaran oo halkan ka dhacay oo laba geesood ahaa ismaamulka Soomaalida ee Itoobiya degmada Gaashaamo madaxdeeda amniga iyo kuwa maamulba iyo degmooyinka gobolka Togdheer ee xuduudaha ku teedsan oo shir maanta halkan uga furmay oo aanu furay kaas oo lagu falaqeynayay sidii amniga la iskaga kaashan lahaa si wanaagsan oo noogu dhamaaday. waxaan leeyahay inta ay ka badan bay la sii xoojiyo ayaan ku dadaalaynaa. waxaan u mahadnaqayaa TV-ga qaranka halkaas oo maanta la isugu yimid degmada Duruqsi lagaga wada hadlayay amniga iyo sidii loo xoojin lahaa saaxiibtinimada labada dawladoodba. taa waanu isla garanay waanu isla qaadanay dhammaantood in la xoojiyo amniga iyo saaxiibtinimadaba. waxaanu halkan annaguna la nimi koox ahaan suugaan fureesha oo aanu imika qaarkeed gudbinay shirka dambe ee ka dhici doona Gaashaamo insha Allah aanu ku tagi doono annagoo kooxda qaranka waxa kamid ah ummadda reer Somaliland ummadii hay Somaliland ilaa nabi aadan iyo intii ka dambeysay baan inagoo laba dawladooda asxaabtu haajirtadan Itoobiya saarahay ammaanka dhulkooda iyo hadaanu keenuba adkaan ilaaladu wada shaqayn ilbuucadu ka helaa iskaashigu waa muhiim Itoobiya Somaliland. nasaabka in gobolka Togdheer iyo gudoomiyaha degmada Gaashaamo waxa weeye hadaan hay Suudaanka deegaanka waan soo dhaweynaa aad iyo aadna waan u taageersanay waana ku hambalyeynaa. waxaan anagoo kamid ah odayaasha gobolka aad iyo aad ugu dadaalaynaa si aanu uga shaqayn lahayn nabadgelyada iskaashiga wada shaqaynta xiriirka mid ganacsi iyo mid nabadgelyada. sida awgeed waxaan aad iyo aad dadweynaha kula ballamaya dhinac walba ha joogeena in walo waliba meesheeda ay aaminto nabadgelyada ka shaqayso adeeg laga shaqeeyo dadku wax dhaafsadaan wixii dib wadana gacan bir lagu qabto. wassalaamu calaykum. kulamadan ay ku kulmeen labada dhinac ayaa waxa dhinaca kililka shanaad ee wadanka Itoobiya uga qayb galay duqa degmada Gaashaamo barasaabka gobolkaas iyo waliba saraakiil sarsare oo dhinaca ammaanka ee ka tirsan wadanka Itoobiya. halka ay maamulka gobolka Togdheer ay uga qayb galeen barasaabka gobolka Togdheer taliyaha qaybta booliiska iyo waliba ilaa iyo 5 gudoomiye degmo oo kamid ah kuwa xuduudaha labada dhinac ee wadanka Somaliland iyo waliba saraakiisha ciidamada. Yusuf Ibrahim Warsame TV-ga qaranka Burco.